بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waa Kaabe Online College anigu waxaan Ustaad Cali Abuukar Axmed Ustaad Kimiko maadada Carabiga ayaa insha Allahu tacaala fasalka sideedaad bilaabi doona manhajka wasaaradda waxbarashada iyo hidaaya tacliinta sare ee Soomaaliya fasalku waa sideedaad daabacada buugga waa daabacadii labaad insha Allahu tacaala buuggan waxaa duubi doona macalin takhasuskeeda maadada ah Ustaad Maxamuud ayaa duubi doona Xasan يا جماعة يا دوبي دونا بوغا anigu waxaan ahay Cali Abuubakar Axmed Ustaad Kimiko agaasimaha macadka Kaabe Online College qaybtan online-ka waxaan ugu talagalnay ardayda dugsiga dhexe maadada Carabiga iyo tarbiyada in macluumaad badan ay ka helaan qaab cabar internet ayaan ugu soo gudbini doonaa buuggan isjiidaadka wuxuu quseeyaa ardayda gobolka Banaadir joogta imtixaanka uu u gala agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir ardayda joogta Galmudug ardayda joogta Hirshabelle ardayda joogta Koonfur Galbeed ardayda joogta Jubbaland iyo hadda ay ku soo biirtay SSC Khatuma dhammaan ardaydaas waxay heli karaan casharo online ah oo diyaarsan oo duuban Ilaahay idmo waxdada uu ka kooban yahay ama wuxuudaadka oo buugku ka kooban yahay waa ilaa 6 wuxdo ama ilaa 6 darsa u taqaanaan mawaadiicda wuxuu kastan waxa hoos yimaada 6 cashir ilaa 7 cashir meesha ugu badan buuggan labaad daabacadda labaad waxyaabaha uu daabacadii hore kaga duwan yahay waxaa ka mid ah in daabacaddan qeyb naxwo ah oo casharada aan fahriskan hadda marka halkan la akhrin aan ka muuqanin oo gudaha ku jiro waxyaabahaas oo dhan insha Allahu tacaala casharadan oo faahfaahsan ayaa waxaad ka heli kartaan macadka Kaabe Online College casharada waxaa soo jeedin doona Ustaad Maxamuud insha Allahu tacaala ya jamaaca wuxdada koowaad ayuu ka bilaabi doonaa macalinka wixii faahfaahin oo ku saabsan macluumaadka ku saabsan qaabka online-ka macadka Kaabe Online College Kaabe cabar internet fi Muqdisho uu bixiyo waxaad nagala soo xiriiri kartaan nambarka shaashadeeda kaga muuqanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته